inuu ari ahay kalaba saari karo xaalad jirta awgeed waan yaray marka dadka waaweyn maqaarkii cunayeen annagana waxaan la siiyay maraqii wax kale la cuno lama hay wax kale la cuno lama hay ma ka jira dadkaas afar jiran waay jaxana la geeyay hadii alla ku reeyay dawladii aan loo gurmatay bariis aad u saliid badan oo markii lama joojiyo saliidu ka daadanaysa hadii alla ku reeyay dadka waxa uu ahaa dahab bariis saliid ka isku kordhay caanana waana la siinayo caanihii gasac weyn oo hadii alla ku reeyay taqtad ma la dhigi jiray barigas waay tan weyn caan booro ku jiray aduu dadka markaas nafta ku soo noqotay shuban badan aniga iyo wixii facayo baadi shumayeen hadii alla ku roon yahay laakiin wala tacaalayo dad dawlad lahay ahay waay abaarta marka daba dheer qoyskaagii wax ku baxay qoyskii waxa hal qof kuma dhiban waay hal qof kuma dhiban marka dad iyo duuyo badan lagu waay laakiin dad iyo duuyo badan lagu waay waay noloshaada marka halkaas ka bilaabanaysaa abaarta daba dheer ay ka bilaabanaysaa xaalad adag waay kadibna hadii alla ku roon yahay xamaraan imid darbi chief waa soo noqday kushineeto waa kariyay xataa biskuleeti waa kariyay baabuurta waa soo dhaqay hadii alla ku roon yahay biskuleeti marka kariyaysa badrooni ma ka noqotay بدروني ما نقد مركز ما شغال قاول واي ادي الله كورون ياي باورتو وسونقاي oo qolada jidadka xaqo dawladda hoose la yiraahdo waa qortay mar oo nadaafada hadii hal gandar oo dagaalkii maxamed siyaad wuxuu dhacay aniga hotel Falarasa la yiraahdo qasnijka ninka iskalana Allah u naxariistay xasan Suudi alla dhihi jiray Soomaali ciidanka ay mooq laakiin wuxuu ugu bartay baar tropical la yiraahdo oo aan markii hore hortiisa baabuurta ku dhaqi jiray dugsiga bartamo ka soo horjeeda baar tropical hadda ma jire waay gabar Talyaaniga laakiin xasan Suudi xaaskiisa ahayd ayaa lahayd hortiisa baabuurta ku dhaqi jiray kadibna baarkii ka siyeeri ka noqday aqalkii inta koob dhaqow ka bilaabay kadibna la aaminiyo baarkii ka siyeeri ka aan noqday kadib hotel Falarasa la soo bedelay marka doo qasnaji oo lacag tiraya dawladdu dhacday ayaa dawladdu dhacday dagaalku wuxuu ka bilowday isgoyska hotel Falarasa hortiisa